السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa mar kale maanta degmada Hodan martino waa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Yiriso iyo gudoomiyaha xigeenka maamulka iyo maaliyadda maamulka gobolka Banaadir Dr. Xuseen waxaan rabnaa marka inaan maanta sida u jeedaan waxaa maanta la daahfuri doonaa xafiiska adeegyada dawladda hoose ee degmada Hodan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo dhammaan maamulka gobolka Banaadir ballanqaadka ay sameeyeen ahaa in la daadajiyo adeegyada dawladda hoose maanta waxaan ku faraxsanahay degmada Hodan inay noqoto meeshii ugu horeysay ee laga hirgeliyay adeegan sida u jeedaan horena u soo aragteen waxa socda shaqo kala duwan oo ka socota xafiiska gudihiisa marka waxaan rabaa inaan ku dheeraan aan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Yiriso si uu uga yiraahdo kelmadihiisa ku aadan munaasabadan maanta anaga farxadda gaarka loo leeyahay hadaan nahay reer Hodan sida hore idinku sheegnay anaga mar walba hal ku dhigeena degmada Hodan waa horyaalka degmooyinka gobolka Banaadir waxaan jecelnahay wax walba inaan hormuud u noqono waxaan jecelnahay wax walba in anaga naga bilowdaan gudoomiye soo dhaw gobolka Banaadir maamulka iyo maaliyadda Xuseen Nuur iyo bahda saxaafadda iyo dhammaan shacabka degmada Hodanba waxaan idinku salaamayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa sharaf weyn noo ah maanta inaad marqaati ka tihiin u jeedaan inaan bilownay nidaamkii dawlad wanaagga maamul wanaagga oo howlihii dawladda hoose adeegyadii bulshada loo qabanayay inaan u soo dhaweynay bulshada oo ay degmada Hodan noqotay degmadii ugu horeysay laga hirgeliyay adeegaas shacabka degmadan deganna meeshii ka soo aadi lahaayeen dawladda hoose ee xamar in ay halkan adeegyadii ay ka heli karaan iyadoo waliba casri ah nidaamka maamulka iyo maareynta maaliyadda ku dhisan daahfuran isla markaana aan haba yaraatee wax maamul wanaag aan ahayn meeshaas ka dhacayn annaga ka dawladda hoose ahaan waxaan ballan qaadnay inaan bulshada u adeegno bulshadan u dhowaano tanna waa tusaale xooggan oo tusinaysa siday nooga go'an tahay dhammaan degmooyinka oo dhan waa la gaarsiin doonaa maantana degmada Hodan iyo degmada Howldaag ayaa barnaamijkan nasiib u yeeshay in lagu bilaabo shacabka gobolka Banaadirna waxaan leenahay adeegyada waa idin soo dhaweynay inaan maaragtay waxaan rabnaa wax walba idin fududeyno idinkana waxaan idinka rabnaa inaad nala shaqaysaan nala garab gashaan hawsha culus ee noo wada taallo si aan magaaladan ugu soo celinno sidii barsimaadka ahaan jirtay magaalo amni ah nadiif ah shacabka deganna ay yihiin shacab hormuud u ah ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa mahadsantiin شغل كل هاي أول رأينا ما
كمال جناح لك شرفه يا بس maanta waxaa farxad noo ah inaannu degmada Howlwadaag ku furno xafiiska adeegyada degmada Howlwadaag waxaana kaloo farxad noo ah inuu nagala soo qayb gal furitaanka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada injineer Cabdiraxmaan iyo gudoomiye Cabdi Xuseen marka gudoomiye ku soo dhawow waxaanan oo aan soo gaarno saakay oo aan u nimid in adeegyadii bulshada laga hirgeliyo shacabka Howlwadaag oo u jeedaan siday u taagan yihiin wadooyinka oo ay diyaarka ugu yihiin in adeegyadii loo soo dhaweeyay ay ka faa'iideystaan sida gudoomiye Cabdikariin u sheegayna adeegyadan shacabka waxaan rabnaa si degdegna loogu adeego si waliba oo muxuu ahaa sharaftooda iyo karaamadooda loo ilaalinayo si qurux badanna loogu adeego adeeg u baahan yihiin loo siiyo xaafadoodina loogu keeno marka waxaan rabnaa shacabku inay ogaadaan dawladnimadu waa shacabka inay yeeshaan rabnaa sababta ugu soo dhaweynayna waa saas waana